السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين أصحاب ميل والباد جوجتان إيسي كوستادي داونيسان كسو دوادا عشر كيني سدحاتي كوساب سنة كورس كيني لما عباهاي كمبيوتر رايسيت أكونتين أو أي نقو برانين سوفتوير كي لما عباهاي بيج 3 إن شاء الله ما عشر كيني وحن كوساب سنة دونا سيديبا لو أورا كونو يولي بسيديبا لو قدرا بيجنين بالانسين إن شاء الله أنت فاهم كسو دوادا عشر كيني marka hore markii aad sameynaysid akoon waxaa lagaaga baahan yahay inaad taqaanid akoonka nooca uu yahay magaca akoonka u baxsanayso adiga ayay ku qosaysaa laakiin waxaa muhiim ah inaad taqaano akoonka sameynaysid nooca uu yahay okay haddii uu qarashaad yahay inaad ka dhigtid akoonka noociisa qarashaad haddii uu deyn ama macaamiisha ku leedahay inaad ka dhigtid akoon receivable haddii aad deyn adiga lagu leeyahay aad ka dhigtid akoon payable intaas lagaaga baahan marka aad sameynaysid akoono sidee aad u sameynaysaa كورس عشر كيني كود حق سوق أنا أقول سمينين كمبني لكن كمبني نوع أو سمينين وحي هيك صنبل أنا وخالني لكن هذا تام كمبني أكو شقينا ما هذا كمبني صنبل وكمبني أو جارت أو كنتيس أدي قاعد يسمع كمبني أسيا أسمي ده أسمي استوكر يعني أكوني سلون إن هذا اسمه بان أدي قاعد يكون جرسيا لكن كمان وحاك مدة خالي محيط أدي الناس ميسين كتير أكونه okay hadirtaan ayaa isku daynaa inaan sameeyno akoonada waxaa soo kaxsanaynaa page 3 inaan soo kaxsano okay page 3 sidaan ayuu soo kaxay saa marka uu soo kaxay waxaan rabnaa inaan tagno maintain meesha qoran tahay ama tabka maintain qoran tahay waxaan kasii dooranaynaa chart of account marka chart of account ku lufto sidaan ayuu ku soo bixi doonaa okay hadirtaan waxaan rabaa inaan fiiriyo akoonada noo samaysan si intee taabanaya waxaa leedahay list okay wuxuu ku soo saaraya akoonada ku sameeyay laakiin si hadda ku muuqato akoon dhan ma noo sameysno marka waxaan rabnaa inaan sameeyno akoono marka waa iska xirina close iskaleena ama adoo close din adoo meesha joogto ay waxa taad kartaa new hadda dhahdo sida akoon loo sameeyo ayuu ku geenaya kan kuwaad waxay tahay waxa laga baahan yahay saddexdan qayb inaad buuxiso waa tan kuwaad akoon ID kaarka oo akoonka kaas waxaad dhigi kartaa number waxa rabtaa u qaadan kartaa tusaale waxaa isleena number 1 isleena okay description waxaa laga rabaa faahfaahin yar oo ku saabsan akoonka aad sameynaysid tusaale waxaa leena anaga cash on hand markaan waa cash oo hadda aad gacanta ku hayno akoonka nuucee waa marka inta ka dooran kartaa hadeerta akoonka aad sameynayno waa cash marka nuuciisa wuxuu noqonayaa cash waxaa leenahay save and new haddii aad rabto inaad iska save garayso oo iska xirto saasoo save aa leedahay laakiin haddii aad rabto inaad inta kuu save garayo haddana mid cusub oo kale aad samayso waxaa leedahay save and new okay save and new waa taabanaya isla markii sidaan uu soo baxaya akoonka labaad aad sameynayno maxay tahay akoon kaleetood oo cash ah laakiin oo naqadoon bangi akoon aan ku leenahay okay number 2 ID kaarkiisa aan siiyey faahfaahin geli ayuu leeyahay waxaan geliyaa Salaam Bank account okay Salaam Bank waan geliyay marka akoonka isla cash ay rabaa inaan ka dhigo maxaa yeelay hadeertan lacagaha company way ku shaqeeyay laba mid weeyaan mid oo cadaan ahaan loo hayo company dhexdeed lagu hayo iyo waliba mid bangiga taasho marka sidaas uu sameeyay hadaa rabto EFC plus waxaas waa ka dhigi kartaa okay waxaa leeyahay save and new okay akoonka saddexaad oo aan sameynayno wuxuu yahay deynta aan macaamiisheena ku leenahay okay ingiriis oo qoran kartaa haddii kale Soomaali iska qornaa maadaama Soomaaliland okay deynta ama macaamiisha aan ku leenahay waxa ku saaray account tab deynta ama macaamiisha ku leenahay akoonka nooceen khanaysa marka waa account receivable haddii account taqaan waxa waa fahmaysaa okay waxaa leeyahay hadana save and new akoonka afraad aad save gareynayo waxay tahay deynta annagana lagu leeyahay okay deynta lagu leeyahay waa qornay deynta lagu leeyahay account noocee waa account payable laba akoon ay jirto oo deyn ah mid waa akoon receivable waxaa waaye mid adiga aad macaamiisha ku leedahay akoon payable waxaa waaye mid adiga lagu leeyahay marka hadda anaga deyntaas gareeyno waxay tahay deyn anagana lagu leeyahay marka waxaa leenahay akoon payable okay waxaa leenahay save and new akoonka shanaad aad sameynayno waxay tahay dakhligii haddii aan wax iibino lacagta naga soo gasho meeshii ay geliyeed okay waxaa leenahay dakhli ama sales revenue ama service revenue saa u dhaqaan okay dakhligaas okay dakhli markaasaan dhaano dakhli noocee waa markan waa income aan qanaa akoon dakhliga noociisa waxaa waaye
income. Okay, waxaa leenahay save and new. Akoonka lixaad aan rabno inaan sameyno wuxuu yahay hantida shirkadda. Okay, hantida shirkadda akoon noocee waa marka waa akoon oo ah equity doesn't close ayaan dooraneynaa. Okay, waxaa leenahay save and new. akoonka toddobaad aan sameynayno wuxuu yahay retaining earning. Okay, retaining earning markaan sameyno akoon tabkeedna waxaa ka dhigaynaa equity retaining earning, kadibna waxaa leenahay save and new. Okay, waxaan rajeynayaa inaad fahantay sida loo sameeyo akoonada. Marka waxaa rabaa hadda inaan aragno akoonada tirada badnaa ee aynu sameynay inaan aragno. waxaan leenahay list. Okay, list markaad taabato sidaan ayuu kuu soo saaray waa akoonadii hadda dhan aan sameynay. kow waxaan u qoray cash on hand, Salaam Bank, deynta macaamiisha, deyntana lagu leeyahay, dakhli, hantida shirkadda, retaining earning. akoonada sidaas aad u sameynaysaa. balansigoodna kulli hadda dhan sida idin muuqato waa eber. halkaas waxaa ugu baxnay ujeedada koowaad ee casharkeena oo ah sidee baa loo create gareeyaa akoon. midda labaad aan rabno waxay tahay beginning balance, sidee baa ugu dareynaa lacag. markaan rabno inaan lacag ku darno waxaan tegaynaa B3 ayaan tegaynaa. Okay, B3 markaan tagno taabka ay qoran tahay maintain ayaan taabanaynaa. waxaan kasii dooran doonaa chart of account markaan taaban account beginning balance meeshay qoran tahay ayaan taabanaynaa. Okay, waxaan rabnaa wuxuu ku leeyahay select periodka doora. anaga company maadaama hadda abuurno waxaan leenahay before. Okay, sidaan ay ugu soo saareen. marka waxaan rabnaa halkan waa debit, halkaanne waa credit. halkan waxaan rabnaa halkan lacagta aan gelin qaybta debitka inay la ekaato qaybta credit. haddii aynan la ekeen asiga ayaa kaa yeelin. Okay, tusaalahaan haddeertaan lacagta aan gacanta ku hayno cashka on hand waxaan leenahay inay tahay tusaalahaan isku soo dheh $20,000. Okay, akoonkan waxaa noogu jirtaa leenahay Salaam Bank waxaa noogu jirto $80,000 tusaalahaan. haddii aan gelin deynta macaamiisha ku leenahay waxay gaaraysaa tusaalahaan $100,000. Okay, qaybtan credit ku imaan waxaa rabnaa intaan oo la isku daray inaan inta gelin. Okay, deyn annagana lagu leeyahay ma jirtaa? ha ama maya. haddii jirto waa jirtaa, haddii jirinna ma jirto. Okay, tusaalahaan waxaana lagu leeyahay $50,000. Okay, shirkadda hantida oo lagu furay oo ay leedahay shirkadda hantiga ay leedahay iyadana waxaan leenahay tusaalahaan intaana waxaa isku daraynaa 20 ku dar 80 waa 100 ku dar waa 200,000. inta qaybtan creditka iyo debitka inay isla mid noqdaan la rabaa. Okay, 50 kuna waxaa ka jaraynaa 200,000 maxaa soo hari doona $150,000. Okay, waxaan leenahay okay, transactionkii had jirtaan wuu fuliyay. sidee ku ogaan karnaa marka wax dhaca? waxaa tegaynaa balance sheet-ka tegaynaa. anigoo ka tegayno taabka ay qoran tahay reports and fund. markaa taabano waxaa noo soo bixi doona qaabkan. waxaan kasii dooran doonaa financial statements. markaan ku dhufano financial statements boxka yaraa soo muuqan doona. waxaan double click ku sii doonaa standard balance sheet. Okay, sidaa markaa taabano waxaad dhahaynaa okay aa dhahaynaa. laakiin haddii aad rabto balance sheet-ka inaa waqti iyo waqti laba waqti inta u dhexeysa balance sheet-ka laba waqti oo soo dhaafay balance sheet-kaaga sida oo haddii rabto inaad ogaato sidaan ay dooranaysaa range aad leedahay kadib labada taariikhood inta gelinaysaa. maadaama laakiin company-gan uu cusub yahay waxaa iska dhiganaa current period. kadibna waxaan leenahay okay ayaan leenahay. halkan waxaa kusoo bixi doona balance sheet-ka ee company-gan. sida idin muuqato waxaa u qoray current group of companies balance sheet 31 October 2019. markii aan sameynayay company-ga ayaa waxaan sameeyay taariikhda si qalad ah u geliyay laakiin mid ma leh 31 October weli ma la gaarin. Okay, balance sheet-ka waxaa aqaan jirteen inuu koodini la sii doono akoonada asset-ka, kadib liability, kadibna equity oo ahayd qaacidadii accounting equation. asset-ka waxaa rabnaa inuu la ekaado liability plus equity. Okay, aragna asset-keena halkan waxaa ku qoran asset, inta waxaa ku qoran current asset oo ujeeda cashka hadda aan haysan waa $20,000. Okay, Salaam Bank waxaa noo taashay $80,000. deynta aan macaamiisheena aan ku leenahay waa $100,000. Okay, total current asset oo ujeeda. Okay, wax asset iyo equipment iyo ma haysan. liability-ga waxaana lagu leeyahay deyn gaaraysa $50,000. sidoo kale haddii aan hoos aan usii wadno shirkadda hanti oo waxay leedahay $150,000. haddii aan isku darno total liability plus capitalna waxay noqonaysaa $200,000. sidoo kale asset-keena ujeeda $200,000.
marka waxaan rajeynayaa inaad wax ka fahanteen sida oo loo sameeyo akoonada iyo weliba sida loogu daro account beginning balance. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysteen insha allah. waa Cabdibaas Xasan Nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara ha noqon inta aan la tabin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.